بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كسو دواذا channel كيغا أستاذ حبيب عبد الرحمن فضلا هدي أتكو عسبتها هاي سبسكرايب تسارو قنبليل كنفورو si ay barnaamijtu hadba ay kuu soo gaaraan insha allahu tacaala caaw waxaynu ka hadli doonaa calaamado nooca ugu halista badan oo ku tusin kara in sababta aad u qaadi laadahay uurka in ay sabab u tahay umusibyaantu calaamadahan aynu tilmaami doono waa nooc ka mida calaamado ku tusinaya in ay umusibyaantu ama marada taabica ay kaa hor istaagtay uurka waxaynu hore uga soo hadalnay umusibyaanta iyo dhibaatada inta badan ay u geysato makaanka sidoo kalena inta badan ay ugala dagaalanto dumarka uur in ay qaadaan in waxa loo yaqaano ay mararka qaar uurkii soo ridayso calaamadaha kan waxa ay ku tusinayaan haddii aad isku aragtay in lagu sameeyey sixru cadam al-injaab oo laakiin can dariiq umusibyaantu ay sababayso umusibyaantu ay waxa loo yaqaano kaa hortaagan tahay in meesha tan waxa loo yaqaano uu uurkii ku samaysmo haddii uu ku samaysmana uu uurkii soo dhacayo calaamada koowaad oo insha allahu tacaala aynu si tafsiila uga hadli doono waxa weeyaan kow waxa aad isku arkaysaa annaki taqcudu fatra tawiila biduun injaab kow in aad muddo dheer marka aad waxa loo yaqaano reer samaysatid oo adigii odaygaagii uu kula joogo oo wax dhibaato ahna aysan idinku furnayn oo dhakhtar kastana aad u tagtay oo dawo kastana aad isticmaashay in aad yeelatid in aadan haba yaraatee wax uura qaadin dabcan ma wada dhihi karayno umusibyaantii ayaa sababtay laakiin dee qadar allah subxaanahu wa tacaala bay noqon kartaa oo ilaahay baaba laga yaabaa inuusanba kuu qorinba li'anno samada ayaa dee laga aqbala oo qadartu hadday kuugu beegantaba inaadan waxba dhalin way dhacaysaa laakiinse min alixtimaaliyaadkaynu ka hadlaynaa in maalan umusibyaantaas sixirka lagugu sameeyey ay marmarka qaar calaamad u tahayba in waxa weeye muddo dheer adigoo dhakhtar kasta u tagay in aad haba yaraatee wax uuraba aadan qaadin taasi waa calaamada labaad oo aad isku arkaysid waxa weeyaan waa kathratu suquud alxamli bisifa mustamira wa mutakarira in mar kasta oo aad uurkii qaadid uu ilmihiiba kaa soo dilmayo mar kasta hal bil laba bil markuu gaaro 3 bil markuu gaaro xataa 5 bilood markuu gaaro 6 bilood iyo wixii la halmaalaba ilmihii inuu kaa soo dhacayo taasina waa calaamad labaad oo ku tusinaysa in umusibyaanta sixirka lagugu sameeyey ay kaa hor istaagsan tahay in uurkaasi ama aad ilmo dhashid calaamada saddexaad oo aad isku arkaysid waxa weeyaan sudaacu nisfi an-nisf ad-daa'im sudaacu nisf ad-daa'im waxa weeyaan waa in aad yeelatid dhanjaf ama dhinac uu madaxu ku xanuuno waxa weeyaan laakiin bishaklin mustamir uu kugu soo laalaabanaya xataa banadoolka waxa ku tari maayo dhakhtarka hadaa u tagtid wax kasta sudaacaasad haysataa waad la yaaban tahay yacni dhakhtar kasta dawo kasta cun xataa dawada hadaa cunto kugu soo laabanaya sudaacaas ayaa isna calaamaadka ka mid noqonaya calaamada afaraad oo ay gabadhu dareemayso marka muddo dheer uurkaasi uu ka raago waxa loo yaqaano annaki ستشعر ببعض الحركة التي تاسو في الرحم وحويان إن aad dareentid
dhaqdhaqaaq makaanka gudihiisa ah. yacni makaankii ayaa dhaqdhaqaaq zaa'id ah uu kaaga samaysmaya. waxa weeye makaanka dhinaca bidix ama dhinaca midig ama korkiisa ama dhinacan waxa weeyaan gumaarka loo yaqaano ama waxa weeyaan ka koreeya waxa weeye makaankii dhinaca xudunta hoosteeda, dhinaca geesyada wareega, waxyaalahaas oo dhan baa dhaqdhaqaaq baa kaaga furan. laakiin dhaqdhaqaaqu markasta daakhila rixim buu u badan yahay. qaar calooshu marmarka qaar gala, horeynu uga soo hadalnay. calaamada shanaad in aad markasta la kulantid ana almar'ata macaha waxa way annaziif addaa'im. annaziif addaa'im in markasta dhiig uu makaankii kaa furan yahay, oo markasta waxa loo yaqaano dhiiggaasi uu bilaa waqti uusan ku imaanayn, ama waqtiga caadada ha noqoto ama waqti ka dambaysaba ha noqoto ama waqti ka horeeya ha noqoto. dhiiggu midabyo kala duwan, marmarka qaar ur u wato, marmarka qaar waxa loo yaqaano uu madow yahay. taasina waa calaamad. calaamada lixaad waxa weeyaan waa nooc ka mida markaa riyooyinka oo aad arkaysid. waxa weeyaan waa hujuumu alkilaab asawdaa, inay ku soo weeraraan eeyo madmadow. eeyahaasoo qaarkaa dambe kaa soo weeraraya waxay u badnaanayaan wixii xudunta ka dambeeya, markasta kaa cunayaan ama kaa xaganayaan ama waxaway kaa haraatinayaan ama isku dayayaan. mararka qaar waxaway kaa soo hujuumayaan meesha cawrada laftigeeda, makaanka laftigeeda kaa cunayaan. iyaduna waxa weeye waa riyada ay ka mid tahay aad markasta arkaysid. calaamada toddobaad in haweeney ay kuu timaado tikraaru imra'ati sawdaa, in cajuusad islaan ah ay mar walba kuu timaado, islaan madow in ay kuu timaado. islaantaasoo waxaa loo yaqaano fool xun, oo sidoo kale waxaa loo yaqaano ur leh in ay markasta kuu timaado. marmarka qaar caloosha kaa garaacdo, marmarka qaar calooshii kaala dagaalamayso, kaa feerayso. waxa weeyaan taasina waxa weeyaan waa calaamada toddobaad. calaamada sideedaad waxaad arkaysaa oo riyooyinka inta badan aad ku arkaysaa al-atfaal fi lmanaami almushawah. caruur aan dhammaystirnayn baad dhalaysaa, baad ama waxa weeyaan banaanka ku arkaysaa caruur yaroo fara badan, ama hal cunug adoo haysto aan dhammaystirnayn, ama curyaana ama handikaaba, khalqigiisu waxa weye fool xun yahay, qabiixa, ya ilmo noocaasaad arkaysaa. iyaduna waa calaamad ku tusinaysa in lagu sameeyey in aadan waxba dhalinba. marka calaamaadka marka aad isku aragtay oo dhakhtar kastana aad u tagtay, waxaa lagaa doonayaa in aad is ogaatid in lagu sameeyey sixru cadam alinjaab, sixirka ka hor istaaga gabadha dhasha. sixirkaasi waxa loo yaqaano wuxuu u baahan yahay in aad iska daweysid. umusibyaantuna tegi mayso ilaa sixirkaas la daweeyo, lianna iyadu aslan waa khaadim, waa shaqaale, yayna u shaqaysaa saaxirka. saaxirkay khaadim u tahay, wax kaleba kuugu imaanba mayso. iyadu aslan shaqay qabataa, shaqadana waa loo diraa. marka waxa weye sixru cadam alinjaab weeye. marka waxaa loo baahan yahay inaad iska daweysid, waxaa loo baahan yahay in aad ka takhallustid oo waxa weeyaan aad dawooyinka cilaajaadka ah ee waxa weeye lixda ah aad qaadatid. oo waxa weeyaan dawooyinkii macjuun alfalaasifa, masbuucata shifaa, iyo waxa weeye duhuuntii iyo zuyuudii. sidoo kalena aad qur'aan fara badan isi saartid, ilaahay subxaanahu watacaalana aad tala saaratid. kabacdina insha allahu tacaala biidni illaah in waxaa laga yaabaa ilaahay subxana watacala marka kugu arsaaqo waxa weeye awlaad biidni illah. muhiimaddu waxa weeyaan markaad dhakhtarka ka timaadid oo dhakhtar kasta aad martid in aadan aaminin inaadan waxba dhali karaynin. leanna waxay soomaalidu ku maamaahdaa cudurka fardaha gala haddii dameeraha laga gubo dee dawadiisa gaari maysa. dhakhtarkii wuxuu kaa daweyn karaa cudurku haya adigi, laakiinse haddii uusan cudurkani ka imaan wax maadiya, waxa weeyaan ma gaarayo dawadii. liajli dalika waxa weeyaan dawadii waxa weye waa qur'aanka ilaahay subxaanahu watacaala. marka qur'aanka ilaahay wuxuu usoo dejiyey in la isku daweeyo. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وحوي قرآنك إن لآمنه بأساسه إن أدنيت السيسان ولبا نقفكم مركا ويستوين ينا
وإنه اسكت وين سيدي إن وحن مركا كلي أباهنايه وإن اسكت ويا سيدي إن كحران يهي وإلهي أباهن يهي وقف قرآنك أباهن يهي وقف وحويان اسكت وين أيوه كأنه ماركتي مرول باللازم أيوه دawada dhakhtarka markuu qofku aado daw wuxuu tagaa inuu markaa kaliya cuno banadoolka waxaad u qaadataa inaad bas markaa intaad cunto isku dawaysid khalaas laakiin quraanku la sida ma quraanka inaad u baahan tahay inaad markii horeba wax u baahnayd oo mar dambe u baahanaysid oo wax noloshaada oo dhan uu ka mid noqdaan rabaa aamintid inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala waxan ka dul qaadi karo taasa muhiima an-niyya nabiga alayhi salatu wa sallam xadiis qudsi محو كتل مام وحوي إلهي سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي أظن كي نيدي سان مر والبلد شرع كان يدو وقيبت وين أعماشك كقيب قارات عافماتك كقيب قارات مركا حتى هذا أدي حتى وحنون قبته مثلا دي شركة حنون حتى وقبته نيد هداد جلسيد إنه سنوح وين أحين بل هذا وفيرسو وشيء بسيط وتصالح واحد سأر كيسا حنونك وكا خفيفة لكن هذا نيتك اللي مثلا بروبلم وين هي وسي زيادة يعني إلى أمر كده ما لقى أمبلاس لوقوق هذا أما أدخلوا باهت لكن شيء مركو قبته هذا سكدي كتير أنا إنترست أذن قلمبة دن أذن كقلمبة سلوك حلقة أنا العافية سيدا سانا مركا لو باهن يقف حالة ظهر وكله قبل هاي مركا حالة ظهر وكله قبسته إلهي سكحد إلهي سبحانه وتعالى بأولاد بحية إلهي سبحانه وتعالى بقصين كرا سوى البا marka inaad asbaabti qaadatid baa loo baahan yahay جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد